hitler markaa micyaarkiisani wuxuu weeyaan inay kulmaan awoodda aragti dejinta iyo nidaamka iyo philosophy inaad dejiso iyo awoodda hoggaaminta iyo inaad zaciim noqoto iyo awoodda hadalka iyo dadka afkaartaada inaad gaadhsiin karto saddexdaasi inay kulmaan buu leeyahay hitler waa wax aad naadir u ah waa wax aan nolosha inta badan lagu arag haddaba brofesor raw baa markuu masaladaa hitler ka soo qaatay wuxuu leeyahay haddaba saddexduu hitler yidhi waa naadir qof ay ku kulantaannu haynaa buu leeyahay saddexdaasoo qof qudha isugu tegey saddexdaasiba waxay ku kulmeen buu leeyahay rasuululislaamka diin iyo mabaadi' cusub la yimi hoggaamin la yimi khatiib mufawahoo dadka wuxuu rabo gaadhsiinayay buu leeyahay waana buu leeyahay fii shakhsi rasuuli lislaami ra'a alcaalamu andar daahira calaa wajhi اlardi buu yidhi qofka islaamka hoggaaminaya ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan buu yidhi andar daahira waa muuqaalka ugu dhif iyo naadirsan ee dhulka korkiisa lagu arkay ee dhiig iyo laf ka samaysan buu leeyahay saddexdaa shay wada wata yacni filosofkani wuxuu leeyahay qof dhiig iyo laf ka samaysan oo bini aadamah oo saddexdaa shay isku wata moxamed baannu aragnay buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidaalika ba wuxuu tilmaamayaa buuggaygan markaan qorayo buu yidhi waxa igu adkaatay inaan nebi moxamed oo dhan ka warramo buu yidhi laakiin waxaa laga yaabaa buu yidhi waxoogaa sawirraa inaan idinka siiyo un moxamedkii nebiga ahaa moxamedkii dagaalyahanka ahaa moxamedkii rajululacmaalka businessmanka ahaa moxamedkii rajulu siyaasiga ahaa moxamedkii khatiibka ahaa moxamedkii muslix ijtimaaciga ahaa moxamedkii agoontu ay ku soo hoyan jirtay moxamedkii addoommaha xorayn jiray moxamedkii dumarka xoreeyey moxamedkii qaadiga noqday moxamedkaasi buu leeyahay taariikhihiisa wax yaroo ka mida baan idiin sheegayaa buu leeyahay buugga kan markaan qorayo ee nebi moxamedka naadirkaa kama warrami karayo yacni wuxuu ka cudur daaranayaa inaannu soo wada bandhigi karin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam jawaanib alcadama qaybaha weyne uu leeyahay ayuha alaxiba filosofkii ingiriiska ahaa ee thomas carlyle lo odhan jiray thomas carlyle waxa uu ka warramayaa cibaadat alabtaal buggiisan la yidhaahdo weynida ama batalnimada la caabudo dabeetana noloshuu qaybqaybinayaa midba meesha uu ku wenyey calaa kulli xaal wuxuu leeyahay diin marka aan ka hadlo ama rijaalka diin hoggaamiyey marka aan tilmaamo buu leeyahay moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan shaki ku jirin buu yidhi acdam inuu yahay dadka diin lagu tilmaamo inuu ahaa buu leeyahay muslix weyn oo aftahana oo geesiya oo mufakira oo sifaadka bini aadam lagu ammaanoo dhan le buu yidhi waxaana ammaantiisa kuugu filan buu leeyahy inaad qur-aankiisa akhridoo qudha waa gaal ingiriis ninka warkan qoraya walidaalika ayuha alaxiba senerostan alasuuji waa swedish waa mustashriq swedisha qarnigii sagaaliyo tobnaad noolaa ahaa ustaada lugaati saamiya brofesor lugaadka saamiga ah daa'irat almacaarifkana raggii waxa badan ka qayb qaatay ka mida ayaa wuxuu leeyahay mu'alafu kitaab uu kaga warramayo qur-aanka iyo baybalka alqur'aan alinjiili almuxamadi buu leeyahay qur-aanka oo baybalkii nebi moxameda iyo buug kale oo taariikhu xayaati moxamed la ydhaaho wuxuu leeyahay mustashriqa swedishka ahi umaynan cadaalad samaynin nebi moxamed haddaynu inkirno buu yidhi wixii uu sifaad waaweyn lahaa haddaynu inkirno iyo tilmaamaha lagu dooran karo bini aadame uu lahaa buu leeyahay haddaynu inkirno waxay ka markhaati tahay buu leeyahy inaynan cadaalad samaynin waayo buu yidhi nebi moxamed dagaal nololeed buu galay buu leeyahay uu la galay jahliga iyo hamajinnimada waanu ku adkaystay mabdi'iisa ilaa iyo uu keenay buu leeyahay shareeco akmalu sharaa'ica
waa shareecada maanta ragga badhay rabaan inay yidhaahdaan waa shareeco mutawaxisha ayuu ninkaa swedishkii wuxuu leeyahay fa asbaxat shariicatuhu akmala sharaa'ic shareecadiisi waxa weeyaan buu leeyahay shareeco la dhigo ta ugu fiican ama ugu dhammaystiran wa huwa fawqa cudamaa'i taariikh buu yidhi dadkii waaweynaaye taariikhdu sheegtay oo dhanna wuu ka sarreeya goote waa taqaaniin goote waa shakisbiirka jarmal ummadda afka jarmalka ku hadasha halka shakisbiir ugu jiro dadka afka ingiriisiga ku hadla ayuu gooteena ugu jira weliba goote shakisbiir waxyaabo aan gabayga ahayn buu geli jiray gooteeye uu dheer yahay goote baa wuxuu leeyahay haddaynu reer yurub nahay buu leeyahay wax allaaliya waxaynu afkaar hayno oo dhammi ma gaadhaysa buu leeyahay tuu maxamed gaadhay waa gootee baa wuxuu isbarbardhigayaa aaraad iyo afkaarta reer yurubka iyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dunida keenuu isdhinac dhigaya deetana wuxuu leeyahay haddaynu reer galbeed nahay mafaahiimteennoo dhammi ma gaadhayso ilaa maa wasala ilayhi moxamed wa sawfa laa yataqadam calayhi axadun buu leeyahay mustaqbalkana ma filayo cid dhaafi doonta inay jiri doonta buu leeyahay waa gooteegii jarmal walaqad baxadtu fi اtaariikhi can muhal aclaa lihada alinsaan bu taariikhdoo dhan baan waxaan baadhay buu yidhi bini aadamka qof aan tusaale uga dhigo waxaan helay buu yidhi nebi maxamed inuu noqday bini aadamka qofkii aan tusaale uga dhigi lahaa sidaa awgeed buu yidhi waxaa waajiba inuu xaqu muuqdo oo korreeyo sidii uu moxamed u korreeyey ee uu dunida kelimatu tawxiid ugu kor yeelay buu leeyahy waa gabyaagii riwaayiga ahaa ee faransiis ee jarmal ee macruufkii aad taqaaniin dadka wax qoraa aad bay u badan yihiin laakiin waan koobaya waxaa jira gabyaa kale oo jarmal ah oo faransiis ah waa alfonso de lamartine alfonso de lamartine waa nin politician siyaasi buu ahaa oo second republickii faransiiska raggii qaybta weyn ka qaatay buu ka mid ahaa gabyaana wuu ahaa dabeetana wuxuu rabay inuu wax ka qoro buug buu leeyahay taariikhda turkiga ah turkigu wax ka qorayey maadaama uu turkiga wax ka qorayay waxa qasab ku noqotay turkiga dee diinta ay haystaanna inuu wax ka qoro uu milicsado dabeetana markuu akhriyey taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa 14 sano kadib muxaadaraadkii carlel uu jeedinayay kadib weeyaan markuu akhriyey ayuu wuxuu yidhi bini aadamka ama qaadada hormoodka bini aadamka kriteriyaan u dhigayaa buu yidhi aynu ku qiimayno oo saddexa bal ninkanna kriteriyadiisa dhegaysta wuxuu leeyahy waxaan ku qiimaynayaa 3 shay kow greatness of purpose laba smallness of means saddex outstanding results 3 shay baan wax ku qiimaynayaa buu yidhi qofka bini aadamka ahi inta ay sarraysay barbowskiisu himiladu raadcaynaya inta ay leekayd oo nebi maxamed himiladiisu maxay ahayd wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas baa ilaahay ku soo diray bini aadam oo dhan baan kuu soo diray baa ilaahay ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam bini aadam oo dhan inuu hoggaamiyo yaa ayuha almudairu qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahir baa lagu yidhi idan wuxuu leeyahay qofku inta uu ka fakeraya ama iskoobka uu gaadhsiisanaayo aragtidiisu ay ku socotay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baa ilaahay ku tilmaamaya kan labaad wuxuu leeyahay idan nebi moxamed universal buu ahaa waxa uu ka fakerayay caalamkao dhan baa ilaahay u soo diray jin iyo insigiisaba kan labaad wuxuu leeyahay smallness of means awoodda uu haystay inta ay leekayd dee nin maalan maanta ninka dowladda maraykan xukumaa dee wuxuu haystaa miiniskii dunida ugu ballaadhnaayo nin madaxa gacantiisa gala hadday dhaqaalo tahay hadday hub tahay hadday dawlad tahay hadday technology tahay hadday dunida ciddii hoggaaminaysu maamulaa ama isagu ninkani qofku qiimaysanaya waa maxay qofkan waa inuu wuxuu haystayna inay wax yar noqdaan nebi moxamed markaynu eegno calayhi salaatu wasalaam
dee wasaa'il dhaqaale ma haysan cidi lama soconin inan yaroo agoona oo meel cidlaa ku soo koray tolkiya dadku ka dhashay meel saxaaroo lama degaa bay joogeen carabi magac iyo maamuus dunida kumay lahayn labada dawladooda waaweynee dunida ka taliya midnaba may ahayn yacni waxay ahayd uun meel bini aadam degan yahay meesha ugu dambaysa ee la tilmaamo ayay saxaara alcarab ahayd markuu nebi moxamed ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad ee la martiin wax ku qiimaynaya waxa weeyaan waa outstandingka resultska ka soo baxay nataa'ijka uu dhaliyey siday u weyn tahay nataa'ij raa'ica yacni nebi maxamed wuxuu leeyahay taariikhda bini aadamka haddaan saddexdaa shay ku qiimeeyo qof himiladiisu weyn tahay waxa agtiisa yaallaana ay yar yihiine awoodee u haysta midhaha uu dhaliyeyna uu midho caalamiyo aad u ballaadhan yahay markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay